السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada saxaabteena qiimaha badan ee ku xidhan channelkeena Xogdoon ee YouTube. maanta barnaamijkeena Xogdoon waxaan kugula wadaagi doonaa haddii Allah subxaanahu wa ta'ala idmo saddex arrimood oo aad ku ogaan kartid inaad weli jeceshahay qof xiriir hore uu kala dhaxeeyay. fadlan waxaan ka codsanayaa intaanan barnaamijka bilaabin inaad videoga like dhahdid si uu bulsho badan u gaaro. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirtid ayaduna waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin cusub. waayahay bal iminkan aan barnaamijkeena hore u galno. marka aad xiriir jacayl la wadaagtid qof waxaa jira mararka qaar oo siday doontaba kugu imaatay aad doonaysid inaad dib u eegis ku samaysid dareenka aad qofkaas u qabtid. waxa suuragal ah in xiriirkaas aad soo waday muddo dheer ayna kula noqoto in dareenka qalbigaaga ku jira uu wax iska bedelay ama xitaa uu dhamaaday. xitaa waxaba suuragal ah in qofka xiriirka uu kala dhaxeeyay aad kala harteen laakiin aad shaki ka qabtid go'aankaagu inuu saxnaa ama inuu qaldanaa, yacni go'aanka aad u kala harteen. waxaad isweydiinaysaa talow weli miyaad jeceshaa qofkaas? jacaylku ma aha wax ku xiran nasiib oo aan la kala ogaan karin dhinaca uu badan yahay, balse waxaa adkaan karta inaad si dhab ah u ogaatid waxa ay naftaadu jeceshahay marba haddii aadan khibrad fiican u lahayn. haddaba si aad u ogaatid inaad weli jeceshahay qof aad kala harteen, waxaan kugula talin lahaa inaad samaysid saddexdan arrimood oo aan kula wadaagaya caawa. qodobka koowaad, ka fakar markii aad bilowday inaad su'aal gelisid dareenka qalbigaaga. dareenka jacayl ee qalbiga hal habeen gudihiis iskuma bedelo. dabcan in muddo ayay kugu qaadatay inaad qof jeclaatid oo aad xiriir la samaysid ruux aad isfahamteen. haddaba inta aadan ku dhaqaaqin jaritaanka xiriirka, marka hore daraasad ku samee qalbigaaga, sababtoo ah haddii aad tallaabo degdeg ah qaatid waxaa suuragal ah inaad xiriirkaaga u geysatid dhaawacan ka soo kabasho lahayn. ceeb ha u arkin inaad naftaada waqti la qaadatid kahor inta aadan go'aanka gaarin. hana isku dayin inaad xalka durbadiiba heshid, xitaa haddii intaasoo dhan ka hor uu xiriirkaaga go'ay. qiimayntaada samee si aad u ogaatid inaad weli jeceshahay qofka aad kala harteen. isweydii su'aalo ku saabsan waxa noloshaada iska bedelay markii aad dareemaysay habacsanaanta ku saabsan jacaylkaaga. tusaale ahaan, ma waxaad bilowday shaqo cusub oo kaa mashquulisay jacaylkaaga, ama aad ku daashay? ma waxaa jira cadaadis dhinaca qoyska kaa haystay oo ku wajahnaa jacaylkaaga? xaqiiji in hoos u dhaca ku yimid xiriirkaaga jacayl uu yahay mid ay sabab u yihiin arrimaha dabiiciga ah ee noloshaada, ama inuu kaa dhammaaday dareenkii aad qofkaas qalbigaaga ugu haysay. qodobka labaad, dib u eegis ku samee sida aad ula dhaqmaysid qofka aad xiriirka la wadaagtid. waxyaabaha aad eegaysid waxaa ka mid ah sida aad ugu dulqaadatid qofka aad jeceshahay iyo heerka uu gaarsiisan yahay dareenkaaga ku aadan muuqaal ahaantiisa. miyuu isbedelay fikirkii aad ka qabtay hamiga aad ka lahayd qofkan? ma yaraaday dulqaadkii aad u muujin jirtay? quruxdii kaaga muuqan jirtay ma kaaga muuqataa weli? waxaa kale oo aad isweydii kartaa in muddooyinkii dambe aad jeceshahay la joogistiisa iyo la hadalkiisa. waxaa laga yaabaa inaad doonaysid nasiino dhinaca xiriirka ah oo aad uga fogaanaysid qofka aad wada socotiin. hase yeeshee arrimahan oo dhan way dhici karaan marka uu xiriirku jiro, laakiin micnaheedu ma aha in xiriirku uu sidaas ku dhammaaday. qiimayn ku samee, kadib waxaa kuu soo baxaya in qofka aad isla socotiin aad weli jeceshahay iyo in kale. qodobka saddexaad, suurayso sida aad noqon kartid qofkan la'aantiis. tallaabadan waxaad u baahan tahay ka hor inta aadan qaadan go'aankaaga kama dambaysta ah. markaaad suuraysanaysid mustaqbalkaaga, qofkan qayb ma ka yahay? xaggee ayuuse kaga jiraa? mararka qaar dad aan jecelnahay waan islahaysiinaa, wayna adag tahay inay nolosheenna ka baxaan. si daacad ah uga fakar arrintaas oo hubso sida ay xaaladaadu noqon karto qofkan la'aantiis. miyay habboon tahay inaad horay uga socotid qofkan, mise waxaa habboon inaad isla jaan qaadiin oo aadnan kala tegin weligiin? haddaba waxyaabahan oo dhan waxay kuu fududaynayaan inaad si buuxda u ogaatid waxa uu qalbigaagu ka yahay qofka aad xiriirka leedihiin. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii uu ku cajabiyey inaad videoga like dhahdid si uu bulsho badan u gaaro. waad ku mahadsan tahay la joogaaga.